بسم الله الرحمن الرحيم. مدحوينها جمهورية فدرالك الصومالية مدن حسن شيخ محمود iyo wafdi ballaaran uu hogaaminayo ayaa soo gaaray Laascaanood caasimadda maamul goboleedka Waqooyi Bari. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa socdaalkiisu astaan u yahay adkeynta midnimada dalka. Sidoo kale waxa uu madaxweynuhu ka qayb gali doonaa xafladda caleemasaarka madaxweynaha maamul goboleedka Waqooyi Bari mudane Cabdulqaadir Axmed Aw Cali. madaxweynaha Jamhuuriyadda ayaa inta uu joogo Laascaanood kulamo gaargaar la yeelan doona mas'uuliyiinta dawlad goboleedka Waqooyi Bari qaybaha kala duwan ee bulshada sida culimada ganacsatada dhaqanka waxaanu madaxweynuhu u kuurgali doonaa xaaladda gobolka. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa u mahad celiyay madaxweynaha maamul goboleedka Waqooyi Bari mudane Cabdulqaadir Axmed Aw Cali iyo mas'uuliyiinta kala duwan iyo shacabka gobolka Waqooyi Bari sida diiran ay u soo dhaweeyeen isaga iyo wafdiga sare ee la socda. haddaba mandiqadan oo ah goobtii la isku oran jiray Somaliland ee Ingiriisku gumaysan jiray ayaa haddana waxay ku xarran tahay goobtii ugu horeysay ee lagula dagaalamay gumaysiga. Laascaanood oo ah caasimadda maamul goboleedka Waqooyi Bari ayaa iyada lafteedu soo dhaweynaysa madaxweynihii federaal ee u horeeyay tan iyo 60kii.